ይሄ ግድብ መላው ኢትዮጵያ ህዝብና ኢትዮጵያ ወዳጆች ሊገነዘቡ marka laga hadlayo arinta biyo xidhanka arinta loo baahan yahay shacabka Itoobiya iyo saaxiibada Itoobiya inay ogaadaan waxa weeye fikir iyo lacag iyo waqti oo kaliya lagu dhisan biyo xidhankan balse waxa lagu dhisay dhiig Itoobiya 5 sano la soo dhaafay waxa laga soo weeraray jihooyin kala duwan ilaa waxaan lagu soo tababaray 15,000 oo qof kuwaas oo loogu talagalay inay waxyeelayaan biyo xidhanka oo kaliya dadka soo tababarayna wadada ajaniba oo aan wadanka u dhalanin balse kuwa la tababaray ayaa kuwa inaga waxay yihiin kuwa la gatay oo la iibsaday oo damiirkooda iibsaday mishinkooda weyn waxa ahaa laga bilaabo samaynta sawirka ilaa laga soo qaaday warshada oo la keenay biyo xidhanka inta u dhaxaysa in maaragtay ay carqaladeeyaan oo ay dhibaato abuuraan ayna ka shaqeynayeen 15,000 qof in biyo xidhanku aanu soo gaadhin heerka maanta uu taagan yahay waxay rabeen inay carqaladeeyaan oo ay dumiyaan oo ay meesha ka saaraan biyo xidhanka shaqadiisana ay mijaxabiyaan waxaana lagu bixiyay naf iyo waliba hanti badan si waxaas u suura galo in badan ka banaan hadal maadaama ka sheekeynteedu aanay munaasib ahayn imikana ma rabo inaan ku sii dheerado hawshaas balse waxaan jecelahay dadku inay fikir ka qaataan hal tarbayn marka la sameeyo ee warshadii lagu sameeyo ilaa uu halkan uu ka imanayo waqtiga uu qaadanayo iyo waliba maartay maalka ku baxaya culayskiisa iyo dhibaatooyinka kala duwan ee laga kulmayo marka uu marsada Djibouti soo gaadho iyo cashuurta iyo kharashka ku baxay iska badhaaf Djibouti dekedeeda ka bilow ilaa halka guuba uu ka soo gaadhayo caqabadaha kala duwan ee uu soo marayo ma aha mid run ahaantii dhab yar maaha Djibouti ilaa halka hadda maanta taaganahay waxa ku soo gaarayaa 45 cisho gaarigu marka u badan tahay maalinta dhan wuxuu soconayaa 40 kilomitir marka caadiga ay tahayna wuxuu socon karaa 25 kilomitir waayo wadooyinka ay soo mareen gaadiidkani ma aha kuwa laami ah ee waa wadooyin dib badan oo aad u rafaad badan gaadiidkaasi alaabta tarbaynada wadana waa kuwa maartay waa weyn maadaama tarbaynka laftigiisu uu yahay mid culus tarbaynada ama dabdhalayaashan ma aha wax si fudud loo qaadi karo sidaa darteed ciidankeena difaaca qaranka iyo wasaaradda difaaca qarankuba shaqadeeda caadiga ka sokow waxa ay qabatay shaqooyin waaweyn oo laga bilaabo inay waardiyeyso gaadiidkaas tarbaynada ama dabdhalayaasha wada amaba in maartay ay wadooyinka oo dib badan awgeed ay wadooyinka xaaraan ilaa 100 kilomitir wadooyin ay sameeyaan amaba inay bambaanooyinka wadooyinka lagu aasay ay ka hor guraan maaragtay gaadiidkan wada tarbaynada ama dabdhalayaasha mararka qaar koodna in kooxa abaabulan oo loogu talagalay maaragtay inay tarbaynadaas ama dabdhalayaashaas gaariga saaran ay waxyeelayaan ay la dagaalamaan halkaasna qaar kood bay ku nafayaan run ahaantii hawshani ma ahayn mid yar oo maaragtay si sahal ah lagu soo gaaray heerka maanta uu taagan yahay biyo xidhanku mar waxa jirtay wadooyinka naga xumaadeen xitaa waxaan weynay qof qandaraas la oo ku dhiirada wadooyinkaas dayactirkooda maadaama ay fog yihiin isla markaana wadooyinka ay dhib badan yihiin balse wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidankeeda difaaca qaranka ayaa ku dhiiraday wadooyinkaas oo dayactiray marka biyo xidhankan waxa weeye mid heerkan waxa uu soo gaaray waa dhiig badan oo daadanay naf badan oo hurnay maal badan oo ku bixinay shacabka Itoobiya oo guud ahaan yar iyo weyn canigu ciiroolaba maartay si waafi ah uga qayb qaatay balse waxa jira iyaguna dad fara badan iyo koox fara badan iyo dalal badan oo dhinacna inooga qosliyay dhinacna maartay aan ka rabin in biyo xidhankan uu hirgalo oo maal ku bixinayay sidii loo carqaladeyn lahaa oo loo fashilin lahaa biyo xidhankan lagu dhisayo maalka shacabka reer Itoobiya marka waxa jira kooxo kugu amaanay wax wanaageed qabatay wadanka gudihiisa balse waxa kale oo jira iyaguna kooxo kale ama isla iyaga kuwanuna oo lacag ku bixinaya in wixii aad ku soo rafaaday biyo xidhanka shaqooyinka kaleba ay carqaladeeyaan ka baabiyaan waxayna rabaan inay cadaadis caalami oo beesha caalamka ku abuuraan wadanka gudihiisa inay qalalasa kaga dhaxabuuraan waxay rabaan inay kugu hubeeyaan maartay jabhada kala duwan marka waxay hanti iyo maaliyad u qoondeynayaan marna horumar marna burbur marka biyo xidhankan waxa uu heerkan ku soo gaaray intaas oo marxaladood intaas oo jaranjaro oo dib badan oo qodaxyo badan oo ka soo gudbo oo ka soo talaabay runaantii si cajiiba ayaan maartay biyo xidhankan aan ku gabagabeynay hada isla markaana go'aano iyo ka go'aansho fara badan oo maartay nafhuris leh ayuu maanta heerkan maanta arkayno biyihii la qabtay tarbaanada dabdaalintii bilaabeen uu ku soo gaaray
aan raba markaa shacabka reer Itoobiya inay fahmaan waxa weeye laba arrimood oo muhiim ah ayaan rabaa inay fahmaan takood waxay tahay markaan go'aansano inaan isbedelo inaan horumarno inaan barwaaqo gaadhno inagu markaan wax wanaagsan ku fikirno kama dhigna adduunyada oo dhan bayna soo dhaweynaysa duniduna inaguma sacabaynayso waxa wanaagsan inagu aan ku fikirno ama aynu qabsanayno waxa loo baahan yahay sidii hore si ka duwan in la isdhageysto oo la isla socdo ujeedada guud ee aan wada leenahayna aan u wada istaagno ka dhabaynteeda awoodeena lacagteena iyo maalkeennaba aanu u jahayno oo aan iska kaashano sidii maartay aan waxaan ugu qabsan lahayn laakiin ta haddaan sameyn weyno waxaan ku guuleysano ma laha gaar ahaan qamadiga dhaxareebka cagaaran corridorka iyo waliba biyo xidheenka laftiisa waxay nagu noqon doonaa kuwaas marka kuwa adag sadartii waxa loo baahan yahay inaan isla soconno isgarabsano istaageerno isla markaana si wada jira uga wada shaqeyno taabagelinta ujeedooyinka aan u leenahay